nebi sulaymaan calayhi salaam iyo boqoraddii saba ee magaceeda la odhan jiray balqiis. maalin maalmaha ka mida nebi sulaymaan calayhi salaam isagoo kor meeraya ciidankiisa ka kooban jinka, insiga iyo shimbiraha ayaa safkii shimbiraha markii uu yimid buu wuxuu ka waayey shimbirkii hudhudka. markaasuu intuu u dhaartay buu wuxuu yidhi, hudhudkii maanta hadduu la imaan waayo xujo iyo excuse macquul ah waan ciqaabi doonaa oo waan cadaabayaa. in yar kadib waxaa yimid shimbirkii hudhudka ahaa. markaasuu intuu nebi sulaymaan calayhi salaam la hadlay buu wuxuu ku yidhi, sulaymaanow maanta waxaan soo ogaaday wax adigu aadan ogayn oo cilmi aadan hayn ayaan kuu hayaa maanta. waxaan soo ogaaday buu yidhi qof dumar ah oo boqorad ah oo iyada iyo qoomkeeduba ay caabudayaan qorraxda. balqiis iyo qoomkeedu waxay degganaayeen oo boqortooyadooda ku taallay yaman magaalada la yidhaahdo saba. waxay caabudi jireen qorraxda, markii ay soo baxdana way u sujuudi jireen, markii ay dhacaysana way u sujuudi jireen. shimbirkii hudhudka ahaa marka boqortooyadii balqiis ayuu soo arkay, nebi sulaymaan ayuuna u soo gudbiyey. nebi sulaymaan calayhi salaam wuxuu ku yidhi, warqaddan qaad oo u geeh, waan arkaynaa waxaanaad sheegayso inay run tahay iyo inay been tahay. nebi sulaymaan calayhi salaam waraaqda balqiis wuxuu ugu qoray in uu ku bilaabanayo bisinka allah subxaana wa tacaala inuu yahay sulaymaan, iyagana inuu amrayo inay u yimaadaan oo isku soo dhiibaan iyagoo muslimiin ah. boqoraddii balqiis waraaqdii markii loo keenay bay qoomkeedii bay la hadasha, waxay ku tidhi, qoomow iyo la taliyayaasheedii, waraaq maamuusan oo boqor sulaymaan la yidhaahdo ka socota ayaa i soo gaartay, saas ayayna leedahay, ee maxaan ka sameeyaa? nimankii la taliyayaasheeda ahaa jeneraaladeedii iyo wasiirradeedii waxay yidhaahdeen, annugu dad awood leh baan nahay, wixiina soo weerarana waa iska difaaci karnaa, ee adigu wixii kula habboon iyo go'aanka aad qaadanaysid aday ku taallaa. boqoraddii balqiis waxaa la yidhahdaa boqoraddu waxay ahayd aad u caqli badan. waxay tidhi, nimankan boqorrada ah haddii ay waddan galaan, waddankaas way baabbi'iyaan oo way kharaabiyaan, dadkiisa acizada ahna dad dulliya oo hooseeya ayay ka dhigaan oo addoommo ayay ka dhigtaan. waxaan kala ogaanayaa bay tidhi, sulaymaan inuu yahay nin adduunye iyo boqortooyo dheeraada raadinaya, iyo inuu yahay nin mabda'an uu ka go'an yahay uu u socdo. hadiyado ayay intay soo aruurisay dahab iyo luul ka kooban ayay waxay u dhiibtay niman mukhaabaraad ah oo sirdoon ah, waxayna ku tidhi, hadiyadahan markaad u geysaan sulaymaan waxaad ii fiirisaan qaabka uu uga falceliyo iyo re'akshankiisu qaabka uu noqdo ii fiiriya. haddii uu ku farxo oo hadiyadahan dahabkan iyo adduunkan uu ku farxo, waa nin lala macaamili karo oo awalba adduun iyo boqortooyo dheeraada u socday bay tidhi. haddii kalena waa nin mabdi'iisu ka go'an yahay, markaasna iyada go'aankeeda ayaan qaadanaynaa, taasi waxa ay leedahay. nebi sulaymaan calayhi salaam markii loo keenay hadiyadihii dahabkii iyo luulkii ayuu intuu ku xanaaqay buu wuxuu yidhi, ma waxay doonayaan inay igu laaluushaan dahab iyo xoolo anigoo allah subxaana wa tacaala uu i siiyey boqortooyada adduunkan oo dhan? nimankii hadiyadaha waday ayuu amray, wuxuu yidhi, orda oo u noqda, waxaan ula imaanayaa buu yidhi ciidan ishaysta yaman ilaa falastiin, iyagoo dullaysan oo yaryarna waan ka saari doonaa meesha ay joogaan. isla markiiba nebi sulaymaan calayhi salaam ciidankiisii ayuu la hadlay, wuxuu yidhi, yaa ii keenaya carshigeeda iyo kursiga ay ku fadhiisato balqiis oo hadda agteeda soo dhigaya. waagaas waxaa jiri jirtay carshiga boqorku ku fadhiisto haddii la soo wareejiyo oo meesha uu yaalay laga soo wareejiyo qolyo kale ay la soo wareegto, qolyaha la soo wareegay baa micnaheedu waxay tahay in boqortooyadii iyagu ay la wareegeen. isla markiiba cifriit oo jinka ka mid ahaa baa hadlay, wuxuu yidhi, sulaymaanow anaa kuu keenaya carshigeeda inta aadan fadhigaaga aadan ka kicin. nebi sulaymaan calayhi salaam subaxii ayuu soo fadhiisan jiray golihiisa ilaa fiidkii ayuuna ka kici jiray. taas ayaa xoogaa la dheeraatay. mid ka mid ah waxaa la yidhahdaa jinku ka mid ahaa, riwaayaadka qaarna waxay sheegayaan inuu qof insaan oo bini'aadana ahaa oo allah subxaana wa tacaala cilmi iyo aqoon dheeraada uu siiyey, ayaa wuxuu yidhi, anaa kuu keenaya inta aadan ilbiriqsan oo ilbiriqsigaaga uusan dhicinba. isla markiiba nebi sulaymaan calayhi salaam waxaa la soo agdhigay carshigii iyo kursigii boqoraddii balqiis. balqiis markii nimankii hadiyadaha waday ay ku noqdeen oo ay u tageen oo ay u sheegeen risaaladii iyo maasajkii uu soo dhiibay nebi sulaymaan calayhi salaam iyo qaabka uu uga falceliyey, ayay ogaatay inuu yahay nin aan adduun u socon oo mabdi'iisu uu ka go'an yahay inuu yahay. markaasay waxay go'aansatay inay u tagto oo iyadu qaabisho. intay jidka ku soo jirtay
ayaa nebi sulaymaan calayhi salaam wuxuu amray ciidankiisa in carshigeeda kursigeeda la beddelo oo qaabkii uu ahaa laga beddelo oo qaab kale loo sameeyo, bal inay hadhow garato inuu carshigeeda yahay iyo in kale. waxaa la yidhahdaa nebi sulaymaan calayhi salaam wuxuu qorshaynayay balqiis haddii ay soo muslinto in uu guursado. jinkii baa marka waxaa la yidhi maqlay sheekadaas. markaasay nebi sulaymaan calayhi salaam intay u yimaadeen bay waxay ku yidhaahdeen, balqiis hooyadeed waxay ahaan jirtay jin, sidaa darteed waxay leedahay lugaha riyaha oo kale. ay nebi sulaymaan calayhi salaam si uu u ogaado lugaheeda mar lugo riyay leedahay mise lugo bini'aadan oo caadi ah, ayuu wuxuu u dhisay qasri ka samaysan muraayad, hoostiisuna ay biyuhu qulqulayaan oo ay soconayaan. carshigeediina qasrigaas ayuu dhigay. balqiis markii ay timid oo ay soo gashay qasrigii, ayay waxay moodday meel biyo soconayaan inay tahay oo biyo lugaha ay la geli rabto. markaasay maradeedii kor u qaadatay oo tafaxaydatay. markaasuu nebi sulaymaan calayhi salaam oo arkay lugaheedu inay yihiin lugo caadi ah oo bini'aadan ah. markaasuu wuxuu weydiiyey kursigaasi inuu kursigeedii yahay iyo in kale. markaasay waxay tidhi, waxaan u malaynayaa inuu kursigaygii yahay, uu u eg yahay bay tidhi. kadibna markii ay aragtay boqortooyada nebi sulaymaan calayhi salaam allah subxaana wa tacaala wuxuu siiyey iyo waxa uu u sakhiray, ayay ogaatay nebi sulaymaan calayhi salaam nebinimadiisa inay sax tahay, wayna soo muslintay. waxayna tidhi, rabbi innii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin. ilaahayow naftayda ayaan dulmiyey, waana soo muslimay, waxaan la muslimay bay tidhi oo la hoggaansamay sulaymaan, allaha caalamiinka rabbiga u ah ayaana u hoggaansamay.